بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ نولدك الله ونحرسته مدحوينيه إنه هو آذن عبد الله عثمان آذن عدي waxaan ka xasuusan karaa waxa aan inta badan gurigan ku soo koray inta badan looga sheekaysan jiray. Gurigan ku soo koray wuxuu ahaa guri ay isugu yimaadaan dadkii horseedkii leegada SYL xayalay aabahay Allah naxariistay wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii halganka soo gashay oo la dagaalami jirtay gumeysiga Talyaaniga isaga iyo 12 uu ku jiro yaa waxa lagu soo eedeeyay inay qalaaso iyo banaanbaxyo ka soo horjeeda lidku ah mustacmarka gumeysiga Talyaaniga waxa lagu xukumay 30 sano lagu xukumay markii ay dhameysteen 8 sano iyo 9 sano in ku dhawaada 1961 July yaa la soo daayay kulli wax alla wixii u xirnaa SYL-ka marka waxyaabihii ka hadli jireen waxa kamid ahaa wixii la soo maray halgankii la soo maray wixii ka hadli jireen sidii loola dagaalamay Talyaaniga taariikho iyaga u dhaxeeyay dadkii halgamayaasha ah oo markaas sheekeysanayo reflection sameeynaayo soo xasuusanayo wixii dhacay halgankii la soo maray intii dhimatay intii loo xiray intii dhaqaale ku bixisay waxa soo idil marka waxyaabaha dhageyga ku soo dhici jiray waxa kamid ahaa markay ka hadlayaan Aadan Cabdulla Cusmaan oo markaas madaxweyne ahaa inuu ku sifoobay ama uu ku adkaa mabaadiida ama afkaartii SYL oo ahaa midnimada Soomaaliya in la adkeeyo wadaniyada la xoojiyo sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed inaysan gorgortan aysan galaynin qabyaaladda in laga fogaado ay tahay wax xun oo runtii dadka ummadda kala qaybinaysa ayna ahayd waxa mustacmarka uu isticmaalo si ummadda uu u qaybiyo oo u xukumo dawladdiisana runtii inta badan waxa lagu xasuustaa oo soo maray marxaladaha soo maray inuu ahaa runtii nin ku adag afartaas mabaadi iyo shanta mabaadi ay aaminsanaayeen halgankii iyo hawlwadeenadii iyo platformkii SYL oo ahaa midnimada wadaniyada dawlad wanaagga sharafka Soomaaliya qabyaalad in laga fogaado waxa soo idin runtii uu ku sifoobay inaan ku faani karno inuu ahaa madaxweynihii Afrika soo maray oo ugu horeeyay oo ku yimid si dimuqraadiyad ah kuna tagay ama xukunka ku wareejiyay si dimuqraadiyad ah waana wax loo baahan yahay hadda naftigeeda inaan ka baranno oo aan uga dayanno iyo mabaadiidii SYL-ka naftigooda ay haysteen oo ahayd haddaan u baahannahay midnimo Soomaaliyeed haddaan u baahannahay oo baahi weyn u qabnaa haddaan u baahannahay wadaniyad bacdama muddo dheer ummadda Soomaaliyeed qabiil iyo qabyaalad loo qaybiyay in laga fogaado oo wadaniyada la xoojiyo hadda la rabaa in aan dawlad wanaag ka shaqeyno oo musuqmaasuqa dawlad waa ku duntaaye waana soo aragnay khibradeena waa leenahay aan ka fogaano iyo sharafka Soomaaliyeed inaan aanan gorgortan laga galin iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed gorgortan aan laga galin runtii wuxuu ahaa tusaale Aadan Cabdulla Cusmaan tusaale ahaa dadkana inaan xasuusino oo maskaxdooda runtii aysan ka bixin haddii la arko madaxweynahaas masuulkiisana macnaheedu waxay tahay halgankii la soo maray SYL soo martay inaan xasuusnaano dimuqraadiyaddana inaan xoojinno oo aan adkeenno inaan xasuusnaano marka runtii waa tusaale wax laga baran karo Allah u naxariisto madaxweynaheena hore Aadan Cabdulla Cusmaan jannadiisii iyo naxariistiisa Allah siiyo